midowga Yurub iyo Mareykan ayaa isku dayay inay mamnuucaan interview laga qaado madaxweyne Putin. Word reset. A massive shakeup in Kyiv coming as Putin is trying to court the MAGA GOP in the United States. In fact, one of the leaders of the MAGA GOP is in Moscow tonight. 24 saac la soo dhaafay waxa baraha bulshada qabsaday interviewgan laga qaaday madaxweyne Putin. Saxafiga madaxa banaan una dhashay dalka Mareykanka, wariyahan oo dhaleecay siyaasadda Mareykanka ayaa madaxweyne Putin interview ka qaaday. Waraysigan ayaa la qaaday Talaadadii, wuxuuna noqday waraysigii ugu horeeyay suxufiga galbeedka madaxweyne Putin ka qaado tan iyo markii uu weeraray madaxweyne Putin dalka Ukraine. Midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa mamnuucay interviewgan Putin laga qaaday in baraha bulshada la soo dhigo. Interviewgan waxaa laga soo diin doonaa X ama Twitter midka u taqaano oo ah meesha kaliya xorriyadiisa qof walba u madax banaanay wuxuu rabana uu soo dhigi karo. Interviewgan madaxweyne Putin laga qaaday wuxuu ku soo aaday saacadaha dhow ee hadda soo socdo. In Moscow tonight, we're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. Almost 3 years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, we're pretty certain they did exactly the same thing once again. But this time, we came to Moscow anyway.